kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena haddii aan lagu qadaro waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya oo weerartay guriga Muuse Suudi uu ka degan yahay magaalada Muqdisho iyo ciidamadii ugu badnaa oo la geeyay aagga Mirnaayada. Haddaba maxay tahay ujeedada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka leedahay arrintaasi iyo senatarka qabka weyn ee Muuse Suudi Yalaxow oo arrintan si lama filaan ah ay ku noqotay. Haddaba waxaa la wadaagi doonaa macluumaad arrintaasi ku aadan qodobada kale idin soo gudbin doono wararkeena qayb ka noqon doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay Axmed Obo oo ka carooday tallaabo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii guul weyn oo maamulkiisu u gaaray dowladda dhexe ee Soomaaliya afka ciidan dartay. Haddaba maxay tahay guusha Axmed Obo u gaaray ee markaasi dowladdu afka ciidan dartay isla markaasina caragelisay hogaamiyaha Jubbaland waan idin soo gudbin doonaa. iyo Puntland iyo Jubbaland oo mowqifkii ugu weynaa ka qaatay doorashada Soomaaliya. Haddaba maxay tahay tallaabada ay damacsan yihiin in December soo aadan ay qabtaan ama ay qaadaan labadan maamul ee Puntland iyo Jubbaland waan idin soo gudbin doonaa. Salaam saaxiibayaal, haddii saaxiibnu ku cusub nagu soo bir muuqaalka like aragtida wax dhisaysan ugu reeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha aan ku bilaawno wararkeena. wararka caawa naga soo gaarayo aagga Mirnaayada ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka taagan yahay taag ciidan oo xoog leh, waxaana la soo sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabo caragelisay ee dadka ku dhaqan aagga Mirnaayo kadib markii dadkaasi lagu wargeliyay in dhulka Mirnaayada oo la og yahay inuu yahay dhul dowladeed ay isaga barxaan isla markaasina dowladdu ay u soo baahatay dhulkaasi. dadka ayaa ka cabanaya in dhulkan la doonayo in koox ganacsatada laga iibiyo isla markaasina la marsiinayo dhulalkii tarabuunka iyo dhammaan dhulalkii dowladda federaalka Soomaaliya horay ay u burburisay oo markii dambana kooxo ganacsatada laga iibiyay. dhulkan oo xeebta Liido ku teedsan ama xeebta degmada Cabdicasiis ku teedsan ee aagga Mirnaayada ayaa hadda markan isaguna madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay u dhaqaaqeen, waxaana tani la fahamsan yahay inay keeni karto caro xoogan iyo isku dhac ciidan. aagga Mirnaayada waxaa ku sugan ciidamo xoogan oo militariga Soomaaliya ka tirsan haba u badnaadee kuwa ka amar qaata senatarka qabka weyn ee Muuse Suudi Yalaxow. haddaba waxaa la soo sheegayaa in tallaabada markay qaaday dowladdu dadka halkaasi degan ay dhigeen banaanbax oo ay kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina ay ku muujinayaan shucuurtooda iyo sida ay u diidan yihiin in la burburiyo xaafadaha Mirnaayada oo dowladdu cagafteeda halkaasi ay gasho. haddaba taagtaagaas ayaa laga soo warinayaa dhaqdhaqaaq xoog leh ayaana ka jiro. dowladda ayaa la soo sheegaya in ciidamo ay geysay iyadoo qorsheynayso inay marsiiso wadadii ay mareen dhulalkii hore ay dowladdu ay u burburisay oo markii dambana kooxo ganacsatada ay ka iibisay. waa hagaagula wararkeena ayaa daawanaysaan qodobkaas aragtidaada ma waxa uu sababi karaa isku dhac Muuse Suudi iyo Xasan Sheekh iyo taagtaaga laga soo warinaya halkaas aragtida hoose ayaa nagu reebi kartaa. dhinaca kale tan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa caro xoog leh ka qaaday kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay afka ciidan u dartay guulo ay ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka militariga wada jiray u gaareen, iyadoo dowladdu guulahaasi ay ku soo koobtay inay gaareen ciidanka qaranka kadib markii degmada Jamaame ay ciidanku ay ku sii dhawaadeen howlgallo militari oo xoog leh oo la fuliyay kuwa oo ay ciidanka qaranku ay ku gaareen deegaano taariikhi ah. haddaba waxaa la soo sheegay in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu hadda tallaabada uu qaadayo maamulkiisu uu ka fiirsanayo, iyadoo tallaabadan lagu macneeyo dowladdu in ay isku dirayso ciidanka furinta ku wada jira ee kuwa Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo cadowga dagaalka kula jira. degmada Jamaame ayaa ay muddo kadib ciidanku hadda ay kaabiga ku hayaan iyaga oo weerar ciriir dhulana ay ku qaadeen halkaas oo ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka Al-Shabaab ee halkaas ku lahaayeen. guulo waaweyn waxaa wadajir u gaaray ama guulaha waaweyn waxaa wadajir u gaaray ciidanka danbe ee xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland, laakiin dhowrkii maalmood la soo laafay warbaahinta dowladda waxaa lagu baahinayay guulaha ciidanka qaranka ee dagaalkaas, waana mid keentay carada Jubbaland ee ku aadan arrintan. falcelin aan caadi ahayn ayayna Jubbaland ka bixisay arrintaas, iyadoo sheegtay in dowladda Soomaaliya ay tahay inaysan qoortiis ku gelin ciidanka ama dhalinyarada askarta xoogga dalka Soomaaliya kuwa daraawiishta Jubbaland ee hal furan hal cadow ugu wada jira. dhinaca kale tan maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka fakaraya qaadida tallaabo weyn oo ku aadan doorashada Soomaaliya. sidoo ka soo xignay ila wareeddo wargal ah labada maamul ayaa qorsheenayo inay qabtaan doorashada golayaasha aqalka sare December tan maadaama inta badan aqalka sare hadda mudxeleedkoodu uu sii dhamaanayo hay'adaha dawladda dhamaano mudxeleedkoodu uu dhamaanayo
baarlamaanka labada dowlad goboleed ayaa lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan qabashada doorashada aqalka sare waxaana kuraasta ugu horeeyo kamid ah senator Iftiin Xasan Baasto, senator Ilyas Bedel Gaboose oo maxbuus ku ah Kismaayo iyo sidoo kale senator Fartaag. kuraastooda ayaa qorshe u yahay in lagu qabto doorashada horaanta December-ta soo aadan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale tan Puntland iyaduna talaabadaasi la ceenayay ka fikiraysaa inay qaado. haddaba talaabooyinka ay qaadayaan maamuladan iyo suuragalnimada haddii ay qabtaan doorashada golaha aqalka sare sida ay cadaadisku xoog ugu noqon karto dowladda federaalka. artaad wasna ugu dhibnaad galiyo.